xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa xilligan taagan halkii ugu adkayd waxaana si rasmi ah gudaha caasimadda uga bilowday dhaqdhaqaaqyada madaxdii hore ee dalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka. xubnahan ayaa iminka badankood yimid magaalada Muqdisho kana bilaabay kulamo si ay u mideeyaan cududooda mowqif rasmi ahna u qaataan. waxaana horboodayay madaxweynihii hore ee dowladii ku-meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed. ujeedka ugu weyn ee mucaaradka ayaa ah inay wax ka bedelaan qorshaha Villa Soomaaliya u dejisay nooca doorasho ee uu dalku aadayo, waana qodob uusan ka weecan karin Xasan. 3 sano oo Villa Soomaaliya joogo Xasan Sheekh kadib dib u doorashadiisii May 2022 waxa uu muuqdaa mid juhdi badan geliyay sidii uu ugu nagaan lahaa kursiga, waxaana arrimahaasi bidhaaminaya u dhagnaanshaha yoolka doorashada dadweyne oo sida muuqata maanta ay adag tahay inay hirgasho. dhowaan wuxuu mideeyay aragtida Villa Soomaaliya iyo maamulada gacantiisa ku jira dhismaha iyo ku dhawaaqista xisbiga cadaaladda iyo wadajirka oo ah mid ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada. waxa uu muujinayaa burbur ku yimid madashii golaha wadatashiga. madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamulada oo ay kulmiyeen dano kursi ku nagaansho ah ayaa noqonaysa arrin ka hor imaanaysa rajadii laga qabay isku soo dhawaansho dhex mara dowladda dhexe, saamileyda iyo maamulada maqan. waxaana gebi ahaanba beesha caalamka ay diiday qodobadii ugu dambeeyay ee ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga. xisbiga uu aasaasay Xasan Sheekh oo lagu tilmaamayo mid uu ku meelmarinayo qorshihiisa doorashada dadweynaha ayaa loo qaybsaday hab 4.5 ah, waxaana xisbigan u sharaxan isaga kaas oo ku magacaaban xilka gudoomiyaha. waana arrin daliil u ah sida ay Xasan uga go'an tahay inuu kursigiisa difaacdo isla markaana uu ka shaqeeyo sidii dib loogu dooran lahaa. madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu marar kala duwan cod dheer ku sheegay in Soomaaliya ay waqtigan isu diyaarinayso doorasho qof iyo cod ah, waxaana uu siyaasiyiinta kale ugu baaqay inay axsaab siyaasadeed samaystaan isna diiwaan geliyaan. madaxweynaha ayaa dhagaha ka furaystay labada maamul ee maqan kuwaas oo qorshaha doorashada diidan, wuxuuna ka biyadiiday inuu kala hadlo arrimaha doorashada isagoo dhanka kalena baajiyay shirkii aayaha dalka looga arrinsanayay ee uu ku baaqay kal hore. mucaaradka uu waqtigan la soo banbaxay awoodooda ciidan iyo tan naqdinta afkaarta villada ayaa la rumaysan yahay in Xasan uu kala kulmi karo culays badan, waxaana xusid mudan in maalmo adag uu dalku cagaha la sii galayo. toddobaadkan gudihiisa waxay si cad mucaaradka u wadajira u sheegeen in dalka uu u baahan yahay in la samata bixiyo, iyagoo ku baaqay in la isugu yimaado shir degdeg ah oo looga hortegayo marinka qaldan ee uu Xasan Sheekh dalka ku hogaaminayo. faquuq siyaasadeed, kalitalisnimo iyo ku tagrifalka awoodda dowladnimada waa kuwa niyad jebinaya shacabka, hoosna u dhigaya taageeradii ay caalamku la garab taagnaayeen Soomaaliya, ayay ku yiraahdeen bayaan ay soo saareen. si ay madaxtooyada Soomaaliya u muquuniso cududda mucaaradka, waxay soo saartay toddobaadkan in gudaha caasimadda aan lagu dhex wadan karin hub culus iyo gawaari dagaal, waxaana amarkan uu ku soo beegmayaa xilli mucaaradku ay muujiyeen quwadooda ciidan taas oo hadalhayn badan abuurtay. dowladda ayaa sheegtay in lala xisaabtami doono askartii galbinaysay xubnaha mucaaradka, taas oo iyana xiisad hor le keeni karta. arrimahan oo dhan ayaa dhacaya iyadoo ay indhaha ka daawanayaan labada aqal ee baarlamanka kuwaas oo ilaa iminka aan soo faragelin muranka u dhexeeya dowladda dhexe, mucaaradka iyo maamulada maqan. si kastaba kala fogaanshaha u dhexeeya madaxtooyada, maamulada maqan iyo mucaaradka xildoonka ah ayaa laga muujinayaa walaac ah inay dalka u horseedo marxalad adag, taas oo laga maarmaan ka dhigaysa in beesha caalamka ay si toosa u go'aamiso nooca doorasho ee qabsoomaysa. waana arrin niyad jab ku ah Soomaalida kuwa oo u muuqanaya kuwa aan wax cashar ka baran maalmihii tagay.